هل باليبر سان هذا يلين لما سنة كمان مع سويسي حالة ذكر ربع تاجرو ذاتهين واردينتا معلمينتا أقوياء الندى نلقي جندري جاجي وعول نديد واقع بيركا فضل South London Somali Family Day. South London Somali Family Day. تبلو معها إلا أنت أنك جيريونا يواسعنا وحنا ذيك عطسنا يا إنا تكسر دونكان بقي بورتيغا هاي باهي أواقفتا وأنا نجيب عرورتا aan soo qaadana walaalkay dal Allah si marka caruurtu wax in loo qabto aad u faraxsanahay galabta Mandela iyo tiimkiisa runtii wax weyn ay qabateen sida sheegaysidna waxaan rajeynaa inaa meesha ka sii wadid caajsin in ilmahan xabsiga aad ka qabatiin ilmaha macnaha aw gacan siisiin aad u faraxsanahay taala wa barakatuhu salaan kadib waxa u mahadcelinayna South London Somali Youth Council oo soo qabanqaabisay barnaamijkan dadka badan babkii loo sameeyay jiilka soo baxay ee Soomaaliyeed oo yaryar barnaamijkan waxa kale oo suurto geliyay Mandela FC oo kaalin weyn ka qaatay waxa kale oo barnaamijka memberka ah South London Community oo horkacay saaxiibkan qaaliga ah gaagaale waxa kale oo barnaamijka maanta marti noogu ah walaalkeen Cabdikariin oo South London community ilaa iyo 1980 ilaa iyo hadda muctarifna ku ah xaafadan sida la wada garanayo waxa kale barnaamijka martina ugu ah dad magac iyo mansab ku leh South London iyo dhamaan UK iyo idin waxaan si khaas ugu mahadcelinaynaa walaalkeen Maxamed Qaran oo ah maskaxdii ka dambeysay barnaamijkan inuu suuro galo waxa kale oo mahadcelinaynaa martida sharafta leh ee waqtigooda u hurtay inay barnaamijkan laga soo qayb galaan insha Allah taala maadaama aan ummad muslim ah waxa ku bilaaban doonaa aayadaha Qur'aan Kariimka ah waxaan codsan doonaa dadka khudbadaha la siin doono maadaama dadkan saaki la hadda la soo taagnay in waqtiga waxa waaye qorriix ay sii tahay casirkii uu ugu soo galay in qof walba waqtiga ay hal daqiiqo ilaa hal daqiiqo fasl muhiimadda u bahasho maasaakiin waxa waaye Qur'aan Kariimka ma yifaayo halkan insha Allah waxaa salaama marti sharafta halkan iskugu timid dayta hooyooyinka dayta caruurta dayta aqoon-yahanada dayta isboortiga dayta gudoomiyaasha qof walba magacay wadataa ku salaam salaan ka bacdi waxaa sharaf noo ahaatay South London Somali Youth Council oo halkan u sameysay isku maatakan sharafta badan ay ku socotaa cawada ama galabta hawsha meesha ka dhacaysa waxa uu mahadceliyaa walaalihii soo abaabulay intaan isku keentay juhdiga gelisay waa mahadsantihiin aad leeyahay سلام كبعدي وحا صومالي هدان نهاي ودن كان قريبا كون نهاي ومدو بدنا نالتين نقول بعرور كيس سيبو كوهاي كل أنا بالله نوت هاي ولا عليهم بالله بي وانت أسبوع كان تاني كمر دليانا سوق أنا كنا وحا هاي last 4 years قدوميه South London أيا هاي وحام هاد عليها سقاصة قدومية دلاف قدومي كحجن كيسة شيخ نور أو مانتي أنت رسول كنتي هل باليبر سان هذا يلين لما سنة كمان مع سويسي وحالة ذكر ربع تاجرو ذاتهين واردينتا
macallimiinta aqoon-yahanada nin la dhihi jiray gindri gaadi wuxuu yiri hindidu waa tabayartay todoba isku socdo marka Soomaaliya hadda isla joogtii wax badan qabsi kartiin ogaada waxaa u mahad celiyaa bahda saxaafadda siqaas aydii salaam waan mahadsantihiin waan laga dambay doonaa aqoon-yahanada dhiman sportiska dhiman xukaastiya joogta hooyinka jooga waxaad ku salaamta islaamka soo dhawaada South London waxaa gudgeli doonaa barnaamijkeena insha Allah taala barnaamijka maanta meeshaan iskugu imaanay waa South London Somali Family Day South London Somali Family Day abayaashii joogo hooyooyinka joogo carruurtii joogto dadka intaan ka badan waxay jeclaan inay ku qayb galaan waqtiga intiida awgiis insha Allah taala waxaa gudgeli doonaa barnaamijka ولا waxay xasuusin doonaa in qof walba hal daqiiqo ilaa hal daqiiqo iyo bar maadaama dadka saaki lahayd ay taagnaayeen insha Allah taala waxaa kaloo barnaamijka maanta nala joogto sidii sharaftaasana naga mudan walaalkeen Mandela hooyadiis insha Allah taala waxaan barnaamijka noo furi doonaa insha Allah taala caaqil Umar Cali Barqadi بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم barnaamijka markaan mudnaanta sii doonaa walaalkeen Maxamed Qaran Daylaaf oo loo yaqaano oo ah maskaxdii ka dambeysay inay intaan oo khalqiyo caruuri aabi hooyo isku imaadaan waana mahad celinayna saaxiibkan waxaa kaloo si qaas ah ula shaqeeyay intaan oo caruuri waalidin isku imaadaan asagana maanta waxa waa kaalin iyo waqti geliyay walaalkeen Nuur Cantoob oo kamid ah aabayaasha meesha fadhiya ayaga insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وأنا السلام يا صاحبي يال. صود وهذا مرتين ما هدينا حافظين جوكتين وحاليا نحن قصود وهذا وحمرك كواد أدينكو اسكتوا فن وما أدينكو اسكتوا إلى وقبرها نوعين أميدا أدينكو اسكتوا فن دمانتين وحاليا هاي آدي أم حسنتين قف إذا مش يقرأ من وأتكلم مقام دونتهين لكن والله أنا أفرح حسن فرحدي لما سو كوبي كرو واحد الله سعد نوجود تمادين ونشرفتنا الله يدين شرفه هذا ما زين taas waa soo dhaweyntii tii shaqada marka ugu gudubno hadalka inuu yaraado ala xukumay marka maadaama tii shaqada aan halkan isugu nimid ay tahay muhiimadeeda inaan maanta halkan ka sheegno magaceena magaca oo aan wada leenahay dhamaanteen waa South London Somali Youth Council hawshan waxaa soo bilaabay dad nagu horeeyay oo hebel aan dhihi karno laakiin mar walba inta ugu dambeeya laga qaataa Umar Cali Barqadla ugu dambeeyay ayaa soo waday dhalinyarada South London sidii aan u midayn lahayn guryaha u tagi lahayn maxaanta qiyaas waxa ku qaadatiin waxa meesha taagan horta aabadan warkiisa yaa la sheegin waxa meesha taagan waa aabayaal inta badan 90% waxa soo baxay waa aabayaal waxaan ka shaqeynay inaan inteena isku nimaano waxay noo tahay farxad gooni South London Somali Youth Council ma ahan wax qolo gooni ay leedahay maanta halkan waxa isugu nimid waa South London Family Day waxa la dhaho waxaa jooga dad iga mudan South London iga experience badan akhyaar ay ku jiraan Cabdisaaq Gaagaale Cabdikariin Bishaar oo South London Somali communities ka long time soo shaqeynay laakiin se qof walba meel soo gaarsiiyaan waxaan rabnaa meesha sharafta leh ee keenay inaan ka sii qaadno waxaan rajeynayaa inaad dhammaantiin garab taagan tihiin waxa meesha fadhiya waa caruurteena waxaan rabnaa inay ka soo baxaan Ronaldo fiirsanaa iyo hebelo kuweena waxaa ku jira dana caadi waxaan rabnaa dadkan caadi ahayn waqti inaan gelino sokay inaan waqti gelino oo aan dhahno soo saarno aan wadnihi siino aan u baahana waqti u baahan tabaarijiintu waqti u baahan soo bixidana maqaamka waqti u baahan yahay hadal kooban South London Somali Youth Council today waxay rabtaa inay soo bandhigto program aan sameynay waxaan rabaa macallin Madaali inuu soo istaago hal mar macallin Madaala waxaan rabaa horta anagoo isku duuban inaan u mahad celino والله عروتنا أجدين خوش على قبنا
waxaan quruxda badan idaasan easy kumaysan imaanin waqti xalow waxaa soo geyn dambeysay 5:30 in the morning shantii barka subaxnimo soo geyn dambeysay saakan 7 soo wacay macnaha qorqo lacag ku siinayso qorshe oo gooni u leeyahay maahan waa passionate wuxuu asagu qalbigiisa ka jecel yahay waa inuu sameeyo annagana waxaan rabnaa inaan uga mahad celin wax fadhiyo waa caruurteen waxaan rabnaa inaan dhahnitaankeeda communities kana kaleeto oo waxaan rabaa inaan maanta idin sheego inteena meesha fadhiso dhan qof walba oo meesha joogo soo dadaalay waxaa fadhiya macallimiintu iskuma jiraan macallin Cabdullah Umar Gaagaale waxaan rabaa sports markaan galay inaan ka tagin saaxiib ila carab macallinkeedii unbelievable waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waa isku xiraha ugu muhiimsan lafteena dhabarka waxaan rabaa inaan thank you very much aad u mahadsantahay siyaasiyiin fadhiya wariyaal fadhiya qofna kama tagin dad macnaha Diinaari Cabdul Xaaji Muuse dhammaantiin waxaan rabaa Bishaar Cabdikariin Xildhibaan Abliisha dhammaantiin hooyooyinka mar labaad waxaan rabaa inaan ku celiyo inkastaysan jeclaysan Mandela hooyadiisa fadhisa waxaan rabaa thank you very much markaas marka laga soo tago waxaan rabaa inaan macallin Mandela ku wareejiyo xilka hadalka waxaan rabaa inuu macallin Mandela noo soo bandhigo ninkoo wada maqlaaya inuu noo soo bandhigo qorshaha Mandela FC iyo caruurta oo tababaraya iyo barnaamijkiisa inuu annagana halkaan ku wada maqalno waral qabaaxiisa mal waa aragnay wixii maanta dhacay laakiin waxaan rabnaa in afkiisa ka maqalno afjooga looma adeego inuu asaga noo sheego caruurtana kulli waxaan umaleynaa badankood wixii Soomaali fahmay wixii aan fahmaynina guriga marka la tago loogu macneeyo macalinku wuxuu sheegay insha Allah taala waa mahadsantiin macallin Mandela soo dhawo waxaan idin leeyahay maanta waxaan leeyahay aad maanta u mahadsantihiin ilaahay khayr ha nasiiyo caruurtiina ka daba carra maanta future-ka maanta waa caruurta annaga maanta waa duqownay kuwana maanta yarar ayaa maanta future u baahan oo wax fiican u baahan in ayaga ka daba carno aan wanaajino aan xoog gelino aan markana gelino ayaa maanta naga mudan waana mahadsantiin dhammaantiin kaaga mahad celinaynaa walaalkeen Mandela iyo gudoomiye Maxamed Qaran waqtiga iyo juhdiga cusub ee u abuurteen dhalinyarada waxaa kaloo rabaa inaan idin ogeysiiyo Mandela kaliya dhalinyaradan yaryar hadda soo baxaya macallin uu ahan dad badan oo anaga ka mid nahay macallin uu yahay marka maadaama barnaamijka furitaanka halkaas oo noo ahay waxa maanta iskugu imaanana uu yahay Somali London South London Somali family day maadaama ay tahay insha Allah taala barnaamijkeena inta badan uu yahay sports waxaana la jooga oo magaca Mansab kula mudane inaan kusoo dhaweeyo walaalkeen لجن قرن هذا ما سنتي ما إماتين waxaan meesha u carreyno aan u cudeyno aan u qabanayno caruurteena maanta caruurteena daartaan inta badan jeel ay ku jiraan inta badan way xaran yihiin inta badan maanta ablaan haysto iska badan yahay caruurta maanta alxamdulillah maanta caruurteena isku haynaa South London waxa dhacday anigoo hal sano ka hor oo football chain iska dhaafay waalidiin badan isoo xariiray oo Mandela liis waxa u baahanahay in caruurteena caawiso ama football chain u bilada u baahanahay ugu dhaxan so that's how I get barnaamijkan sameeyay iyo coronavirus ka dhacay orod dhalinyarada xaafad la bilaabay ay ugu baraarujisay inaan maarta caruurta maanta la shaqeeyo ama u qabto so maanta laga bilaabo waxaan doonayaa from 5 years old ilaa 14 years old inaan ku sameeyo football training xaafadeena South East London oo from the age from 5 ilaa 14 oo football training sameeyno from 12:30 ilaa 2:30 from now inshallah from every Sunday inshallah waa silaawa waxaan kaloo doonayaa insha Allah sheego arbaca kasta insha Allah waxaan doonayaa Stratham ilaa 4 o'clock dad xagga jooga isoo wacay oo baasi jooga iyo club junction iyo muxuu ahaa tuutin soo wacay dhahay Mandela waxaan doonaynaa caruur badan aan haynaa oo madow iyo cadaan isoo isku jira inaan caawisan doonaynaa dhahan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxay runtii ii tahay farxad aan la soo koobi karin inaan maanta ka qayb galo kulankan qiimaha badan oo aan u arko walow aan maqlahay aan jeclayn haddana magacaas inaan sheego waxaa khasab noqotay inaan sheego oo markii ugu horeysay dad Soomaaliyeed oo degan dalkan Ingiriiska ay kulan noocan oo kale isugu yimaadaan anigu waxaan ka qayb galay dhowr shir wadamada ku yaala galbeedka Yurub wax iiga farxad badan maanta ma jirto
at least waxaan tirsanayay carruurta halkan fadhida oo tiradoodu yacni kontameeye ay gaarayso laakiin marka aan tagno dalalkaas waxaan arki jirnay 500 ilaa 1000 carruur Soomaaliyeed ah oo goob la isugu keenay waxaan u mahad celinayaa magaca dadka halkan jooga guddiga qabanqaabada oo uu gudoomiye u yahay walaalkay Maxamed Deelaaf iyo guddigii ka horeeyay ee maanta halkan in la soo gaaro ka shaqeeyay waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Mandela iyo dhammaan qaybaha bulshada magac kasto ay halkan ku joogaan hawsha qiimaha leh ay shacbiga Soomaaliyeed u bilaabeen in ay u qabtaan waa la sheegay haddii ubadkaagu haddii ama ubadkiinno ama kuwaygu ay ka badbaadeen xabsiyada dalkan Ingiriiska iyo galbeedka carruur badan oo Soomaaliyeed ayaa xabsiyada ku jirta carruurta halkan joogta maanta waxaa tusaale idinkugu filan halkii guriga lagu celcelin lahaa maanta markii la ciyaarsiiyey farxadda inay idinla wadaagaan sida ay u fadhiyaan quruxdeeda wax la heli karaa ma dhaqan ahaan dadka Soomaaliyeed ama waa yani hadda Maxamed Qaran wuxuu lahaa aabbayaasha wax badan baa leedahay maxaa yeelay maqaaxiyadaha kama dhamaadaan gabdhuhuna kama dhamaadaan inay ururiyaan ayuuto maanta wixii ka dambeeyay waxaan rajaynayaa investmentiga annaka in nala ka bilaabo ballanqaadkaygii shalay ee ahaa inta laga gaarayo in dawladda Ingiriiska ay ka helaan wixii dhaqaale ah ee dadka la isugu keeni karo xaafadaha aan ka soo jeedno ee South London in dhinacaas 10 qof laga qaado kulanka xiga wixii maanta gabdhihii dabka noo galay waa mahadsan yihiin kuwii suuqa adeega ka keenay waa mahadsan yihiin ninna inaanan culays ku noqonin waxaan anigu ballan qaadayaa carruurta halkan joogta waxaa boorsadayda ku jirta konton buug oo aan ugu talagalay inay carruurta Soomaaliyeed maxaa yeelay fi abbaan ahay marka carruurta iskoolka la geeyo challenge waxay kula jiraan sidii ay wax ula qaybsan lahaayeen carruurta aasaagood ah maadaama aysan fursad u helin hooyadu intii ay ururinaysay ayuutadu aysan fursad u helin inay library-ga geyso aabuhu uusan fursad u helin inuu ka doono dugsiyada waxbarashada carruurtaadu waxay dugsiyada la dhigtaan kuwa ka horeeya maxaa yeelay hooyadood iyo aabahood dhaqan ahaan waxaa la geeyaa goobaha waxbarashada waxaan u qaybin doonaa carruurta halkan joogta min 2 buug intii ay gaaraan 25 30 kontonka buug waa free waxaan idinkana idinka codsanayaa inaad halkii haddaad awoodi weydeen inaad goobaha waxbarashada geysaan inaad guriga ugu akhrisaan cunugii oo isku yaqaana afka Ingiriiska iyo afka Soomaaliga isku yaqaan waa ayaan darro inteeda leeg ubadkaaga guriga kula jooga inay ku fahmi waayaan oo Ingiriiska jaban adna aad kula hadasho isagu laakiin uu fahmi karo waxa aad u sheegayso waxaa la yidhi xildhibaana hadal la siiyey haddana hadalkaa la soo gaabiyo walow codsigu sidaas ahaa waxaan rabaa 2 daqiiqadood inaad ii dulqaadataan buugaagta waxaa qaybin doona Maxamed Qaran iyo Mandela oo carruurta halkan joogta iyagaan guddoonsiinaya hal ii soo bixiyo boorsadaas buugaagta ku jirta iyagaan ku wareejinaya oo guddiga qabanqaabada ah wixii contribution ah sidii aan horay u ballan qaaday wixii contribution ah oo ku saabsan in ubadkeenna sidan oo kale la isugu keeno waxaan codsanayaa qaybta koowaad aniga in la iga soo doono bilow ma aha ilaa inta aan ka geeriyoonayo waa soconaya waxaan idinka codsanayaa inaad iga soo doontaan wixii bahda isboortiga baahi ah waa qabta waa wanaagsan aabiyaalka hooyooyinka ugaasida bahda isboortiga dhammaan carruurta inta xafladdan loo dhigtay horta galab wanaagsan aadaan u mahadsantihiin salaan kadib waxaan aad ugu faraxsanahay runtii galabta waxqabadka ay maanta ay sameeyeen walaalaha soo London Kumista waxaan u rajaynayaa inay halkooda ka sii wataan halqabsi oo waxaa jiray diiwaan filshaanko carruurta aan soo qaadana walaalkay dhalalaasi marka carruurta wax in loo qabto aadaan ugu faraxsanahay galabta Mandela iyo tiimkiisa runtii wax weyn qabateen sidaa sheegaysidna waxaan rajaynayaa inaa meeshaad ka sii wadid caajisin in ilmahan xabsiga aad ka qabatiin ilmaha macnaha gacan siisiin aad ugu faraxsanahay gudoomiye Maxamed
qaran iyo cabdi iyo sheekh nuur ayagana hawshiina meesha kasii wada cabdirasaaq gaagaal hawl fiicanaa qabatay runtiina oo maanta dhiirigelinta xogaasha isboortiga aadan mastiin xaynuuq aadan ku filaad dhammaantiin